السلام عليكم يدو سكور رمى ذي جامع وأنا سكور أكسر هي إلهي مهدي إلهي واسدا إلهي مهدي إلهي بلو شكري حال الروب قال كانوا كويلة هل كان الساقة أنا قلنا هالكاتاناني أنا تفرفديني كل كتاب بروانو إسكاقاتكنو مجيل إسكانو كينا كل كتاب بروانو إسكاقاهينو حتى نسقدي دحانا سبحان الله ومقال هذه يدو عجيب بدل الله وقفك على الدرنا حالدي الروب كانوا يسوي جوكستي هالكاسو حالي إلا شلي لح ساعدود ملاها الروب كوهيي تبو أرقتا وحي إسلام هي وقرقاري كريو إنكا وركيسو واكا muuqaalkani waa hooyo maryan dubbad shabeel oo 27 bishii abriil ee sanadkani ay ku baahiyeen baraha bulshada samafale Dr. Maxamed Jaamac Xasan iyo Ibraahim Muuse aw Cali waxaana bulshada markaasi loogu baaqayay inay ka soo qayb qaataan sidii loo caawin lahaa hooyadan iyo wiil ay dhashay oo xanuunsanayay isla markaasina roobkii helay xilligaasi uu dushooda ku bilaabmay kuna dulqaaday iyadoo dadka laga codsanayay in ugu yaraan loo dhiso 2 qol oo jiingada si roobka ay uga galaan bulshada Soomaalida oo caan ku ay sudirnaxa iyo istaageerida ayaa markiiba u kacay sidii loo caawin lahaa waxaan ay durbadiiba hoy u yagleeleen hooyo Maryan Dubbad halka wiilkeedina loo soo kaxeeyay xarun lagu dabiibo oo ku taala magaalada Hargeysa kuwani waa kooxda samafalayaasha oo ka kooban gudida horumarinta dacwadda ee deegaanka Libisagaale waxaana ay ka waramayaan qaybta koowaad ee waxtarkii loo sameeyay Jaamac Ibraahim Faarax iyo hooyadii Maryan Dubbad maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bishii 7 2021 waxaynu joognaa gabagabadii hawshii ninkii xanuunsanayay iyo islaantii aynu wadnay halkan markaa waxa maraya gudidii qaybo kamid ah maanta markaa dhismayaashii iyo hawlihii socday iyo halkay marayaan ayaynu markaa insha Allah kala qaadan doonaa isla socodsiin doonaa inay hawlahaasi inoo soo gabagaboobaana insha Allah aad baynu ugu rajaynahay sida uu sheegay walaalkeen halkani waa Libisagaale tuulada Libisagaale hawshan aynu maanta u taaganahayna waxa weeyaan ninkii xanuunsanayay ee in badan oo idin kamidii ugu soo tabarucdeen maalkiini in badan oo idin kamidina u soo ducayseen in Ilaahay caafimaad siiyo hawshiisii ayaan waxa weeye Jaamac Ibraahim Faarax ee ku aragteen isagoo biyaha dhex fadhiya hawshiisii aynu galay ayaa maanta gabagabadeeda aynu marna waa laga warbixin doonaa anigu shirkuun baan fureeyay dhismahani waa 3 dhisme oo loo sameeyay mid kamid ah weeyaan oo aynu maanta kala wareegayno injineer Ismaaciil oo halkan taagan oo furay nagu wareejin doona inaguna aynu furaa ku sii wareejin doono cidii mudatay ku xaq leh oo halkan ayana fadhida marka qof kasta oo waxa weeyaan ka soo falceliyay soo duceeyay maalkiisa soo bixiyay ku farxay waxa loo qabto waa u mahad celinaynaa qof kasta oo ka hawl galay hawsha oo ugu horeeyo دكتورkeena oo waxa weeyaan Dr. Maxamed oo isagu Facebook dhigay qasna jira uu noqday maalin iyo habeen uu shaqeynayay waxa leeyahay guri jannada fardowsa aad ku farxdo Allah kaaga dhiso ubadkaaga iyo adduunkaaga Allah ku wanaajiyo cid kasto hawsha qabatayna waa mahadnaqaynaa waana ducaynaynaa runtii iyadoo lagu jiro xilli rooba oo dadka badankiisu ku diirsadeen roobka oo ay barwaaqo u ahayd bishuna Ramadaan ahayd ayaa waxa dhacday subax ayaan halkaas ka maray marka si kadisaan baa waxaan ula kulmay soo eeg baan jiro barwaaqadii anaga barwaaqada noo ahaydoo cid mushkilad ku ah nin marka horeba geed ku xidhnaa oo dayacnaa
oo geedka hoostiisa qodi jiray god ka dhigi jiray godkii ku buuxsamay marka runtii waan isbedelay ma garanayo xilligii laakiin dee sawirkii qaaday una diray guddiga alxamdulilah ismaan lahayn anigu heerkan bay gaadhaysaa laakiin ilaahay raxmaankii cidduu doono wuxuu doono siduu doonaa buu ka dhigaa uu barakeeyey ilaahay baa mahad leh jaamac iyo hooyadii oo maryanoo tanoo intii aan wareysanaye iyo bulshooyin kale oo xanuunsanayaba faa'iida ka soo gaadhay qaar badan oo ka mid a cilaashadaa lagu soo xidhay qaar badan oo kalena insha allah waxaanu ugu rajo weynahay in muxsiniinta caalamku ay iyagana wadadeeda mariyaan hadday tahay reer Lebisagaal hadday tahay meel kaleba bulshada dayacan ee dhimirka ka bugta ee intooda badan dadka haysta aanay waxba dhaamin waxaan ugu baaqayaa muslimiinta caalamka iyo Soomaalida iyo Islaamkaba in dhan naxariis la lagu eego sida jaamac oo kale loo gurmado ilaahayna waxaanu jaamac iyo kuwa kale uga barayno inuu caafiyo runtii waa maalin ka duwan maalintii aynu waxa weyn ummadda la wadaagnay sawirkii naxdinta lahaa runtii qof kasta oo qalbigiisa markaasi waxa weeyaan naxariis iyo dareen islaamnimo uu galay maanta waxa weeyaan oo maalinta ka murugoodayna oo maanta ku farxi doono insha Allah biidnillaahi alkariim sida anagu baan ugu faraxsanahay sida Ibraahim Muuse sheegay maalinta roobku daay habeennimadii oo dhan budaayay maalintii markii uu soo sawiray runtii wuxuu nagu soo diray group khayriya oo guddida dacwadu markaas ay leedahay oo aan markaas ku jirno Ibraahim markaa wuxuu nagu soo dirayay runtii dareen iyo runtii saa uu sheegay waxa weeyaan runtii naxariis uu markaas dareemayay in uu baahan yahay walaalka xanuunsanaya runtii anoon cidna la tashanin ayaan go'aan degdeg ah qaatay ahayd bal inaan baahiyo marka waxaan ka fikiray bal intay garanayso ma intaanu khayrka ka wada shaqeyno in ay malaha qol sandaqada ay u dhisi karaan runtii meel hoosaan qabsadayo wadcigaan ogaayo dadka adduunka maanta aaminaadii ba iska yaraatay dadkii dad badan oo si qaldan u adeegsanaya media oo dadka dhibaatadooda ka faa'iideysanaya soo baxay waana runtii su'aal igu soo noqotay in badan intii hawshaasi socotay oo dad badani runtii ay isweydiinayeen iyagoo adduunka ay bixinayaan la jecelaynaynin haddana jeclaa inay waxa ay bixinayaan inuu meesha saxayd mara ay ogaadaan runtii caqabad bay runtii waanan dareemay waana wax jira arrintii muddo koobanba waxaan arkay in looga soo jawaabay si aad u wanaagsan oo waafiya oo markaasi waxa runtii dhiiri gelisay diila gelisay isla markiiba waxaan kula noqday guddidii ilaahay khayr siiyo waxa ka tirsanaa dacwada Lebisagaal iyo deegaanka saadiradeed waxa weeyaan guddidina hawshii waanu sii laban laabnay dadkii walaalaha muxsiniinta ahaa ee runtii wax la baxayay ayaguna waxa weeyaan sadaqadii waa sii laban laabeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin ninkii walaalkeen xanuunsanayay waxa weeyaan Ibraahim Faarax jaamac Ibraahim Faarax runtii waxa weeyaan maanta xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay goob kamida goobaha lagu xanaaneeyo ama lagu daaweeyo dadka dhimirka markaas waxa weeyaan ayuu ku jiraa Hargeysa aad buu runtii xaaladiisu wanaagsan tahay sidoo kale hooyo Maryan Dubad oo iyaduna halkan fadhida waxa weeyaan alxamdulillah iyada inoo sheegi doonto xaaladeeda aad bay iyaduna wanaagsan tahay waxa ilaahay waxa lagu mahadiyaa in mashruucani wajiye badan yeeshay wajiyada waxa kamid aha muu ahayn Ibraahim keligii qofka xanuunsanayay deegaankan laakiin dad badan baa runtii jaamac dad badan baa laakiin runtii xanuunsanayay oo dhinacyada afarta koone ee waxa weeyaan tuulada ama deegaankaba ku xidhan dhirta hoostooda ilaa hadda Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nagu guuleeyay saddex kamid ah in markaas oo waxa weeyaan uu jaamac ku jiro inaanu qaadno oo waxa weeyaan magaaladii geyno oo cilaaj geyno runtii labada kalena dad muxsiniina oo waxa weeyaan ya qaarkood naga qaabileen qaarkoodna markaas waxa weeyaan sida waxa weeyaan manhal oo kale Ilaahay khayr siiyo sidoo kale waxa weeyaan qaarna wax dad muxsiniin baa sanad ka bixiyay kuwa kale waxa weeyaan halkan ku xidhan ayagana daawadii waxaan u keenay dhakhtarkii ayagana daawadii baa u socota qaar badanna waxa xaaladoodu way wanaagsanaatay dhammaan waa tacaawunka iyo walaalnimada aynu markaas waxa u taaganahay arrintan haddii aan u soo noqdo maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa qaybtii koobaad oo markaas mashruucay aynu markaas ugu talagalnay ama ku saacideynay markaas walaalkeena xanuunsanay iyo waxa weeyaan hooyadii iyo ehelkoodaba mashruucaasi waxa weeyaan maanta halkan waxa weeyaan deegaanka laba kamid ah ayaynu markaas ku wareejin doonaa furuhoodii oo inoo dhamaaday wixii markaas waxa weeyaan inta ka dambeeyana waxa weey magaalada lafteedina iyo waxa weeyaan ka xanuunsan lafteedina insha Allah waa tagaynaa waxaanu leenahay guddidaasi wax badan bay u qabatay Lebisagaal
waa ciddii dadka dhibaataysan soo caawisa ee caawimadii ugu weynayd ee loo soo qabto dadka dhibaataysan ayay tani tahay. waxaanu leenahay dadka muxsiniinta ah ee arrintaas ka qayb qaatay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo. waxa qabateen wax wanaagsan oo bulshadu ay aad iyo aad ugu diirsatay meel kastoo ay joogto. dad intaa kale ee xanuunsanaysana waan eegi doonaa insha Allah caafimaadkooda. rabbil caalamiin ilaahay waa hawshu waa nagu guuleeyo waa naga u dhameystiray gurigii iyo goobta kale waa tagi doontaan insha Allah soo eegi doontaan. nimankana waxaan taaginahay gurigan oo aan u dhisnay ninka xanuunsanaya muxsiniintii ka soo qayb qaadatana Allah ka jisaysiiyo gudidii ka shaqeysana ilaahay ka jisaysiiyo oo yoomalaya maanta uga ajar badan waxa ay bixiyeen ilaahay ka jisaysiiyo dhamaantoodba. nimankana waxaan furaha ku wareejin doonaa gudidii hawsha ka odayaasha ahayd qasadsigii ahna ninkii ugu horeeyay ka qayb qaatay barnaamijkan ee faafiyay markaa waa insha Allah Dr. Maxamed Shaax Xasan oo ku wareejiyay furayaashiina. waxa weeyaan waxaynu sida aynu arkayno waxa uu injineerkii nagu wareejiyay ordis qurux badan u dhisay oo dhameystiray sidii runtaan ku heshiinay. furihii buu nagu wareejiyay markaas waxa weeyaan guriga waxaanu furaha ku wareejin doonaa inaguna waxa weeyaan ehelkii iyo reerkii aynu u dhisnay gurigan. waxa halkan fadhida hooyo Maryan Dubad oo markaas yeeynankeedii waxa weeyaan Cabdiraxmaan marka iyagana ku wareejin doonaa. ilaahay rabbiga weynay waaxidi waa inuu nin walba horta muraadkiisa siiya. marka xigtana waa inuu ilaahay jannadii siiya. marka xigtana idilkeeba nin walba waa inuu muraadkiisa siiya. aakhira jannadii ilaahay waa inuu idigeeya oo anagana nageeya. ka warraba markii hore iyo imanka ka war xaaladda ka war. maasha Allah maxaa iskaga mid dhigay maantaan boqolkiiba 90 ahay. أنا لله وإنا راجعون. حاسب برادقي habarkeed ku qalashay iyo maanta hay baarlama maxay saagdhigay ba maalintii in ka xanuunsanaya iyo hooyo hawsha la bilaabay iyo dhamaantayo iyo maanta oo aanu hadii ilaahay ka dhigayo dhamaan nabadqab ku wada joogno farqi weyn baa u dhaxeeya sababtoo ah binadii la dhisay ee lagu dhisay hawlgalka ayaanu hortaagnay imaka cid kasta oo daawataa way arkay doontaa marka waxa weeye talaabo cad oo muhiima ayaa halka ka muuqata waxa aan uga mahadnaqaynaa cid alla cidii hawsha gacan ka geysatay ee wax ka abaabushay iyo cidii ilaa maanta iyo ilaa maalintii la bilaabay u taagnay intaba iyo allaha deena hawlgaliya dhamaantayba waanu mahadnaqayaa iyo waqti duuban oo tabinada iblis laga daahayba dadku taagi daa'ima wallow dirkayaga hago dibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadanoo hadee بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu taaganahay halkii aynu ka bilownay hawshan marka khayriga ah waa halkii uu ka dhisnaa buulka oo imaka aynu ka dhisnay sandaqadan waxa halka iyadana inooga muuqato arki doontaan geedkii uu ku xidhnaa markaasi waxa weeyaan biyaha uu ku dhex jiray waxa weeyaan jaamac Ibrahim Faarax halka waxa fadhida waxa weeyaan hooyadii Maryan Dubad alxamdulillah gurigana waxa weeyaan waa qaybtii waxa weeyaan koobaad waxa weeyaan aynu uga dhisnay halkii markaasi waxa weeyaan ay deganaayeen waa guriga sandaqada waa 2 qol iyo barandihii iyo suuligii oo waxa weeyaan siliigii leh oo dhameystiran alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan ku wareejin doonaa furayaashii markaasi gurigan aynu ku wareejin doonaa hooyo Maryan marka waxa weeyaan insha Allah alxamdulillah marka waxa weeyaan insha Allah billahi alkariim waxaanu ilaahay ka baryaynaa cid kasto ka soo qayb qaadatay walaalaha muxsiniinta Allah subhanahu wa ta'ala inuu ka jisaysiyo annaguna waxa weeyaan hawsha insha Allah markay aanu waxa weeyaan dhamaan isu gabagabayno waxa weeyaan ayaanu waxa weeyaan insha Allah billahi alkariim ayadana gabagabeeda la wadaagi doonaa waxaynu u ducaynaynaa cid kasta oo xanuunsanaysa oo dhiban amba deegaankan ha ku noolaato amba deegaanada kale ha ku noolaato
in ilaahay subxaanahu wa tacaala mid walba hawlihiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo ciddii dhib haysatana dhibta ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dulqaado waxaynu u mahadnaqaynaa cid kasta oo hawshaa khayriga ah aynu qabannay ballaadhan ee gudayo dibadba leh ka qayb qaadatay mid arrin ku darsaday iyo mid adduun ku darsaday mid soo sawiray mid sii faafiyey mid ka hawl galay mid dhisay dhammaan waynu markaa u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkooda jannaha ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala dunuubtooda ha dhaafo ilaahay subxaanahu wa tacaala hawlahooda ha fudeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ku adagba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka faydo aakhiriya adduunba dhibaatadeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka ilaaliyo allaha ka raali noqdo dhammaantood waxa la yaala wixii ka qayb qaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka raali noqdo waxaynu ugu ducayno oo markaa dee ka weyn ilaahay ka raali noqdo jannana geeyo oo ciribtooda hagaajiyo garan mayno abaalkooda ilaahay unbaa markaa gudi kara guddida ayaa sidoo kale guri iyo lacag ay soo direen samafalayaasha kala jooga daafaha caalamka ku wareejiyey mustafe oo ah ehelka jaamac ibraahim faarax halkan maanta waxaanu isu soo taagnay inaannu tacriifinno ama sheegno ama ka mahad celinno ninkii xanuunsanayey in badan baraha bulshaha ku aragteen waxa weeyaan qaryadda 29 laga soo duubay yani waxa weeye kilibtiisa lacagta loogu ururinayey ee xanuunsanayey biyaha geedka ku dhex xidhnaa ee dhibirka ka xanuunsanayey ayaanu doonaynaa inaannu u mahad celinno bulshadii wax badan soo tartay una aan tusnana lacagtoodii ay gashadeen inaannu annaguna maalgelin ugu samaynay oo ay gacan aamina ugu dhacday markaa tacriifintaa iyo mahad celintaasi baannu halkan u joognaa waxaa ila jooga mustafe oo in adeerkii rumo ehelkiisiiya oonu ku wareejinnay guriga naga dambeeya iyo dhismayaal kaleba oonu uga iibinay lacagtii ay soo baxsadeen dadka muxsiniintii iyo doctor maxamed oo ninkii qasnajiga u ahaa guddidayada iyo xoghayaa ee lacagtu ay ku soo dhacaysay maqalkiisa ee isagu maqalhaya ahaa iminkana wareejin doona lacagtii intii ka baaqi ahayd markaa waxa weeyaan waxaanu ilaahay uga baryaynaa dadkii ka soo falceliyey ee ka soo jawaabay dhawaaqayagii aanu ugu qayladhaan dirnay ninkaa xanuunsanaya allaha caafiyo isaguna u wanaagsanya cilaaj buu ku xidhayay uu tashanaya maanta muddo 4-3 bilooda buu cilaaj joogaa waa nin tashanaya maanta sawirkiisana waanu idinla soo wadaagi doonaa muxsiniinta khayrka jecel daafaha dunida meel ka joogaanba oo runtii waxa weeyaan maanta aanu halkan u taagannahay inaanu u gudbinno tacabkoodii iyo wixii markaas ilaahay dartii ula baxeen ay walaalkood markaas ku saaciideen ay ku caawiyeen inaanu tusno si ayaguna ay ugu qalbi qabowsadaan runtii qofku markuu wax la baxay ilaahay dartii baa ula baxay cidna isku tusaynin meediana muu marinin laakiin qof waliba runtii dareen buu muujinayay maalinta dad badan baa ilaa hadda ila soo xiriira wallahi qaar baa iyagoo ooyay la soo hadli jiray oo runtii dareenkooda aanad cabiri karin oo aad uga xumaaday aad uga naxay waxa weyn walaalkooda dhibaataysan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xanuunka keenay ilaahay baana qaada runtii way u gurmadeen annagana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa nagu asturay maanta iyaga iyo annagaba farxad bay noo tahay falilaahi alxamdu 2600 mustafa oo tirinaysa guddoomay guddida iyo dadkii caawiyey iyo dadkii u kacayba intaba waan u mahadnaqaynaa jaamac maanta gacan fiican buu ku jiraa meel fiican buu ku jiraa noloshiisu way wanaagsan tahay waa nin maanta hanti leh hanti maguuraana caafimaadkiisuna uu soo kabanayaa waa u mahadsantihiin dhammaantiin cid kastoo ka qayb qaadatay allah ya baarki sidoo kale waxaan booqannay halka lagu dabiibayo jaamac ibraahim faarax wada sheekaysi iyo kaftan dhex maray guddida waxa uu uga warramay xaaladdiisa caafimaad iyo weliba maalintii hore sida ahayd iyo maanta sida ay tahay waxa weeyaan ninkani waa jaamac ibraahim faarax kolley intiina aragtay jaamac waxa filaya muuqaal ka duwan ayaa ku aragteen jaamaca waxa weeyaan waa ninkii aynu ka soo qaadnay deegaanka 29 isagoo
geed hoostii ku xidhan oo ku silsilaysan oo biyo dhex fadhiya sawirkii maalintii idin muuqday argagaxa runtii aad uga muujiseen iyo naxdinta maanta sawirkiisii waa ka farxad leh jaamac maanta halkan aan ku soo booqanay uu soo dhaweeyay alxamdulillah kullay waxaan filayaa jaamac waxaanu ka wada nimi ka nimi 29 halkan aynu nimi ka waran 29 iyo halkan keeba wanaagsan halkan lagu qaato miyiba haydo halkan wanaagsan cuntada iyo xasinka wanaagsan nadaafada iyo xayawaanka wanaagsan iyo hawl yaraanta waaya kolley dadkii jaamaca dad badan baa runtii ku soo duceeyay dad badan baa ku soo caawiyay alxamdulillah dadkii maxaad ugu ducaynaysaa maxaad odhanaysaa dadkii maxaad ugu ducaynaysaa nimankaaba dumar baan ugu duceeyay ma sha Allah qaar khayr qaba ma sha Allah qolii kale maxaad ugu ducaynaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ducaynaya khayr Allah idin ma sha Allah خير الله يدسيو جامع حلي dadku wax weeyaan halkii ka soo qaaday halka wanaagsan keenay waxa weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakay soo sama way jaamac ka waran hooyo ma ka waran shabriya hooyo maalin halkan igu yimaadeen iyadiyana waa igu dambeysay ayaa kugu dambeysay bariyahaas maxaa laakiin warkooda ma lagu soo gaarsiiyayo inay sida yihiin iyo xaaladooda والله سيدي يقول ما دي هاي شلي يا كوي شلي أنا بايت هاي أنا تواصل تلو أنت يا مويا خوف قولي مسوي أنت دم intaasi kadib samafala doctor maxamed jaamac xasan ayaa isagu si guud uga warbixiyey guud ahaan xaaladda jaamac ibraahim faarax iyo weliba deeqihii kala duwanaa ee dadku ay u soo direen iyo sida ay ugu nidaamiyeen saaka waxaanu joognaa xarunta caafimaadka dhimirka ee habwanaag oo uu ku jiro walaalkeen jaamac ibraahim faarax oo aynu hore uga soo qaadnay deegaanka 29 isagoo markaa aynu ogeyn duruufihii markaas ku gadaanaa maalinta aynu soo qaadayna ama aynu baahinaynay sidoo ahaa muuqaal ahaan iyo caafimaad ahaanba alxamdulillah sidii ay ogeedeen waxaa naga qaabilay ilaahay khayr siiyo maamulka waxa weeyaan habwanaag mental health oo runtii dadaal muujiyay oo waxa weey u hagar baxay oo waxa weeyaan aad iyo aad ugu mahadnaqayno inta ka hor waxa runtii arinta gacan weyn ka geystay oo sidaan u soo qaadi lahayn inuu hargeysa u soo gaarsiin lahayn dadka muxsiniinta ee Soomaaliyeed meel kasto adduunka ka joogan dal iyo dibadba oo ayaguna waxa weey Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr siiyo runtii waxa weeyaan u hagar baxay maanta oo arkaysaan jaamac runtii waxaanu muujinay inaanu wixii dadku ay markaas waxa weeyaan soo gaarsiiyeen aanu maanta oga yeegleelo 3 bino oo runtii guri ah oo hanti ah 2 guri waxaan oga dhisnay deegaankii oo jaamac ku noolaa oo hooyadii iyo walaalkii iyo dadkii ehelka ay joogeen labadii baan waxa weeyaan aanu oga dhisnay hooyadii guri baan u dhisnay guri kalena waan u kiraynay oo markaas ay bishii ka qaadato markaa kirada sida ka arki doontaan muuqaalada sidoo kale jaamac hargeysa aan guri uga dhisnay 5 qol aanu adiga jaamac guri aad leedahay oo 5 qol ayaanu hargeysa kaaga dhisnay oo ku kiraysan waxa weeyaan gurigaasna runtii waxa weey isaguna ku yaala meel istiraatiiji ah magaalada hargeysa xaafadda degmada maxamuud haybe xaafadda quracdheer aaga maxamed axmed cali runtii waxa weeyaan gurigaas maanta uu kiraysan yahay jaamac wixii qarashe ka soo baxana waxa weeyaan isaga ayaa dib caafimaadkiisa loogu waxa weeyaan dib caafimaadkiisa looga shaqeeyaa alxamdulillah rabbil caalamiin waa sadaqa jaariye weey adduunkiina soo gaaray oo waxa weeyaan 60,000 kor u dhaafay runtii waxa uu noqday in markaasi waxa weeyaan aanu u gelino hanti ma guurtaa oo qoyskaas ay intifaacsadaan inta ay markaa adduunkan ku nool yihiin وانا صدق جاريه soconaysa qof kasta wixii uu bixiyay maaha wax mar la isticmaalay wax soconayo noqonaya insha Allah billahi alkareem wixii soo horeyna waa sidii arkaysa waxaan ugu wareejinay ehelkiisa ayaguna markaas waxa weeyaan wixii danihiisa iyo dantiisa ama dantooda oo markaas waxa weeyaan ay arintaas waxa weeyaan ay ugu qabanayaan insha Allah billahi alkareem waxaan jecelahay mar labaad iyo mar saddexaad in arki doontaan jaamaco waxa weeyaan runtii gurigiisa isagu la wareegay oo waxa weeyaan tashanaya
oo caafimaadkiisu boqolkiiba boqol yahay insha Allah billahi alkariim waxaan rajaynayaa ducadii aad ka u badnayd bishii ramadaan ay soo direyseen runtii ilaahay inuu aqbalay runtii dadku aad bay u ducaynayeen waxa ka qiimo badnaa runtii waxa adduunka la bixin waxa ka sii qiimo badnaa ducada runtii dadku ay ducaynayeen qalbiga niyada ugu ducaynayeen jaamac ilaahay meel fiican ba caafimaadkiisa maray ilaahay idankii aad bay runtii u caafimaaday isbedel weyn baa ka muuqda waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo inta yare markaas waxa inuu dhimana ilaahay subxaanahu wa ta'ala u dhameystiro isaasan rajaynaynaa insha Allah maanta halkan waxa igu weheliyay safarka Mustafa waxa weeyaan abdiidaan iyo waxa weeyaan Sakariye Xasan Axmed Xasan oo runtii ayaguna waxa weeyaan ilaa bilowgii hawsha waxa weeyaan la waday Sakariye gudidu kamid yahay runtii dacwadda deegaanka 29 ee markaas hawsha gacanta ku haysay marka waxa weeyaan hawshaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala idankii si fiican bay nagu qabsoontay qof kasta ku niyad qaboobo ha ku waxa weeyaan ha ku markaas wax ku farxo ducadana la soo wado insha Allah billahi alkariim gudida hawshani sida laxaad kale uga dhex muuqday isla markaasina qayb uga ahaa hirgelinteeda waxaa ka mid ah gudoomiye Sheekh Cali Guuleed Geelle gudoomiye ku-xigeen Sheekh Cumar Axmed oo Faarax Dr. Maxamed Jaamac Xasan xogayaha gudida iyo khasnajiga guud ee gudida dacwadda Ibraahim Muuse oo Cali Engineer Ismaaciil Maxamed Cali iyo waliba samafalayaal kale oo markaasi qayb laxaad leh ku lahaa sidii caawimaad loo gaarsiin lahaa Jaamac Ibraahim Faarax iyo hooyadii Maryan Dubbad Shabeel u gargaar danyarahaaga waqtigu gaabshay daa'ima wallow dirkayaga hago dibadiya dalkaba ku dabaalsamo daadanoo hadee